magac sheek kadibna waxa haysid hor u gal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaantiin magacayga waa Maxamed Xasan Balaak naanistiina waa Damardeeku abba Mudhoofana bariyan leego waca waxaan idin wadaa bariyahan way igu cusubta magacaas waxa waa curiya baan ahaa laakiin curiya oo waxaan ciyaar xafadeed laakiin hadda insha Allah gabaygan horaan u galaa Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim bilow hore bandhigeeyay baadina bulshada boqoranay Soomaali weyn assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bulshadeedii Soomaali weynay bariye ma ahan bilii laba ma ahan sanooyin baa ifog baan u bukaansanaa baahi aan u qabay inaan idin baaramo runtii idin bayaansho bulshadeedii Soomaaliyeedo boogtii barta aan ka bukaan qabno noogala badan yahay anagoo baran oo ogo ogsoon baan isdabaalinaynaa anigu se waxaan baacsanayaa aan beentoobaynin intaan booli daaqnahay la wada baadiyeysan yahay keenii wax bartayna ugu boobka badan yahay beledii baadiina bulshadii ku nooleed baaw ii baqdin ay ku baryayaan marnaba baraari iyo bilqeyr bishaaro ma inoo bidhaamayso bushii iyo balaayada baayba kama baxayno beel isku buusidii anaa baawur sareeyada biliseefoorki iyo boonay 25 kan laga baxayda la baashay barteedii ku beeran intay baaqiga tahay marnaba baraari iyo bilqeyr bishaaro ma inoo bidhaamayso bushii iyo balaayada baayba kama baxayno intaan awur alla beeninayno boqollow barwaay dheheyno kitaabkiyo sunnada bayaan ugu tagayno badow buugo qorina buunbuuninayno beerkana anaa mudan oo cunayo balaqana ayaga baasadana anaa mudan oo cunayo buunshadana ayaga aan dheheyno baaba mooyaane badan mayno buuq baarlamaan badaaye qaran bayno ma badbaadayo beled xaawo la boobe badaaye banaadirba waa nagala baxsan oo baadi doonaa bulshadeedii Soomaaliyeedo inuu baraf qawow yahay bisbaas uu kuleel yahay malab uu macaan yahay sibir uu qaraar yahay cusbe ay dhanaan tahay idinkoo baran oo ogo ogsoon baad isdabaalinaysaan bulshadeedii Soomaaliyeedo idinkoo boqorkiina mid uu yahay diintiina mid ay tahay beledkiina mid uu yahay beesadiina mid ay tahay beec mushtarigiina mid uu yahay bielkiina mid uu yahay beerihiina mid ay yihiin in la idin kala baadilo la idin kala beer bukaansho soo badawnimo iyo waxaad beerateen maaha bulshadeedii Soomaaliyeedo cilmi iyo cibaadaan rabnaa cadaalad baan rabnaa calan licisaan rabnaa col dhamaadaan rabnaa cadow la waayaan rabnaa cudur la cuusaan rabnaa calool fiyoobi baan rabnaa cabsilii baan rabnaa ciribtir cuqdad baan rabnaa caruur ciyaartaan rabnaa war anaga cod dheer iyo caanbax Soomaali ciisaday leeyahay baan rabnaa bulshadeedii Soomaaliyeedo wallahi baan ku dhaartay billahi baan ku dhaartay tallaahi baan ku dhaartay boqorkeeni baan ku dhaartay bayaan weeyaan kitaabkeenan quraanka intaad beeninaysaan bar ka beeninaysaan baal ka beeninaysaan bog ka beeninaysaan ba ka beeninaysaan baaba mooyaane badan mayno boqolaal qarni oo baaqi ee bari aad ka bilowtaadaan marnaba baraari iyo bilqeyr bishaaro ma inoo bidhaamayso bushii balaayada baayba kama baxayno bulshadeedii Soomaaliyeedo dhammaanteen dhal aadan leenne dhoowa leenne dhaladaw leenne dhagadaw leenne dhimadaw leenne diinto leenne dadkoo leenne dalkoo leenne takoorku ma isku dhaafno So every people Somali to believe in Allah and His Prophet Muhammad, my peace and blessing of Allah, stop the 4.5 and block it because 4.5 that's not good. There is hadith which was narrated by Nabiullah Muhammad sallallahu alayhi wasallam which said لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله لما واحد يشجع انت وقف بني آدم أو الدنيا كله ليها أو دلمونها والله إلهي عدالة سحمة كينايا إلهي لقى بقى 4.5 انتو تاجين سو ما لما حي سكوايس تا وان دهنا ماني والله وحكسنا لقى بحماي نين بقول إلهي كدي انت برده هنا والله نلنا جرميسو سلام